السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي soo dhawaada maanta waxaan isla eegi doonaa ama waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa qaabka ugu fudud eed ku baran karto luqadda Ingiriiska. Habka ugu fudud eed ku baran karto luqadda Ingiriiska. Marka kaliya ma aha luqadda Ingiriiska balse nooc walba oo luqadda aad doonayso ama xirfadda aad rabto ama waxaad doonayso inaad barato kaa fiici kara khaasatan luqadda markaad doonayso inaad barato. Halkan waxaan markaa idinkula wadaagi doonaa oo aan uga dhiganaa mid khaasa luqadda aad baran karto. kaliya maahan Ingiriis, Carabi aad doonayso inaad barato luqadda Isbaanishka, doonayso inaad barato luqadda Faransiiska, yani luqad nooca doonaysa bal halkan idinkula wadaagi doonaa. Marka qodobkeena koowaad waa be confident, kalsooni inaad leedahay. luqadda inaad barataa waxay ku xidhan tahay horta naftaadu ma ku kalsoon tahay, ma iskuna kalsoon tahay inaad luqadda barato. Go'aan ma soo gaadhay inaad luqadda aad barato oo isku kalsoon tahay, naftaada la tashatay oo doonayso oo rabitaanka tahay inaad luqadda barato. Marka if you are feeling fear, you do not speak English. waxaad haddaad cabsi dareemayso balaba maysa sida luqadda loogu hadlo, waad cabsanaysaa, kalsooni ma lihid, naftaada go'aan kamaad gaari, kalsooni iskuma qabteen luqadda baranayso, saas aawadeed ma baran kartid luqadda. marka qodobka koowaad waxa weeye ma isku kalsoon tahay, naftaada ma la sheekaysatay, ma doonaysaa luqadda inaad barato, wax kaa go'an ma tahay. marka ood kalsooni ku qabta naftaada inay kaa go'an tahay luqadda Ingiriiska inaad barato. kabacdi intaa markaad naftaada ka hesho waxaad bilaabaysaa haddana socdaalkii qodobkii labaad maxaa ku xiga saad u bilaabi lahayd waxaasoo dhan. markaa tukubad waxa weeye inaad leedahay ka go'naansho, inaad leedahay qof isku kalsoon, naftaada ku kalsoon, doonaya inaad waxaan samayso, inaad barato. laba, waxaad learn vocabularies, inaad barato kelmadaha, weedhaha, ereyada luqadda. marka luqadda markaad baranayso waxaa muhiim inaad taqaano ereyada, kelmadaha iyo feebabka iyo ficilada oo la isticmaalayo. waayo haddaanad luqaddii aanad garanayn kelmadaheygii iyo ficiladeedii iyo hadalkeedii iyo magacyadeedii waa adagtahay si aad luqadda uga hadasho, kaamana soo wax kaa soo baxayana male. laakiin marka ereyga taqaano waxaa fudud inaad iska tiraahdo ereyga iska tiraahdo. iminka haddaanad garanayso sida loo yidhaahdo soco, kaale, go, home, yani oo sidoo kale come here, taasoo kale haddaad kelmadii garanayso waxaa laga yaabaa in kaa soo baxdo, hadalkii kaa soo baxo oo ereyadii aad taqaano. waxaa lagu odhanaya soco, waxaa lagu odhanaya kaale, waxaa lagu odhanaya cab, waxaa lagu odhanaya qaad. kelmada noocaas oo kale haddii marka aad garanayso waxaa fudud inay kelmadii kaa soo baxdo. marka qodobkiina labaad waxa weeye learn vocabularies, inaad barato ereyada vocabulary-ga, inaad iska dhisto erkaliya oo kelmadaha aad barato oo aad xooga saarto ereyada ugu muhiimsan, weliba the commonka kuwa aadka u caan. saas aawadeed baan channelkeen xooga ku saarnaa ereyada in maalinba aan mawduuc ereya ka barano oo maalinbaa wax ka barano. saas aawadeed qofkii doonaya luqadda inuu xooga saaro channelkala ku xidhnaa insha allahu tacaala. fiidiyo badan baan idinkula wadaagi doonaa haddii ilaahay dhahdo. marka qodobka labaad waa maxay? learn vocabulary, inaad barato ereyadii iyo kelmadii inaad barato. saddex, try to speak no matter how, isku day inaad ku hadasho luqadii waxay doontaba ha noqoto, kelmad waxay doontaba noqoto, intaad doontaba karo. waxba ha ka cabsanin kelmadaha inta tira ay leeyihiin, intaanad garanayn waxaad garanayso, just isku day inaad ku hadasho. wixii waa luqad, maahan cilmi, maahan luqadii. cilmiguna wax yar bay ku kala duwan yihiin. cilmiga waa la xifdiyaa, waa la akhriyaa, dibadna maskaxda la geliyaa, waa la qaybaa, taasoo kale. laakiin luqadii waxay u baahan tahay mar walba kelmadaha aad barato inaad ku dhawaaqdo oo isku dayda inaad tiraahdo dadkaad kula hadasho. marka practice badan aad samayso. marka waxaa dhahatay practicing is the best way to build your speaking skills. inaad practice karayso waa midda ugu muhiimsan. inaad luqadii barataa ood practice qaataa ood ku celisaa ood ku hadashaa ood tiraahdaa waxay doontaba ha noqotay, wax kaa caawinaysa inaad hadhow marka aad madal ama goobaad timaado ama qof aad kula hadlayso inuu hadalkii kaa soo baxo ilwaad la qabsatay. qodobka afraad wuxuu noqonayaa dhegeysiga, listening English podcast, inaad dhegeysato podcastyada ee ku baxa luqadda Ingiriiska yani ay sameeyaan dadka u dhashay luqadda native speakers ay sameeyaan. inaad dhegeysato xataa hal kelmad aad ka taqaanid, hal kelmad aad ka garatid dhagahaaga la qabsanaya
inta badan aad dhegaysataan waa inta badan aad fahmi doonto mustaqbalka dhow. Marka waxaa muhiim ah inaad dhegaysato iyagana oo samayso dhegaysi badan inaad samayso. Samee dhegaysi badan si aad u fahamto dadka kale ee ku hadlaya luuqadda. Waayo markaad dhegaysiga badan samayso dadku ay ku hadlayaan waxaa la qabsan doona dhegahaaga, kabacdi waxaad ku fudaanaysa inaad luuqadii fahanto, inaad isfahantaan oo dadka markay ku hadlayaan fahanto. Waxaa jira dad badan oo luuqadda Ingiriisiga ku hadla laakiin ay adag tahay dadka native-ka inay fahmaan oo boqolkiiba 50 ka fahmaan waxay yidhaahdaan. taasna waxaa ugu wacan dadku inaanay dhegaysan ama aanay dhegaysi badan aanay samaynin ama dadkaas mawduucyada ay sameeyaan aanay ku xidhnayn. taas aawadeed listening English podcast waxay ka caawinaysaa luuqadii inaad fahanto oo dhegahaagu ay la qabsadaan. way kiina shanaad, use your friends. asxaabtaada u isticmaal kelmadaha aad barato inaad ku hadasho markaad kelmadaad barato ama aad luuqadii iyo vocabularieskii iyo ereyadii markaad wax isku wada keento ku tiri karee oo kula hadal asxaabtaada adigoo u isticmaala kaba soo qaadaya inay yihiin dad cadaana ama dad luuqadda Ingiriisiga ku hadla inay yihiin oo doonayso inaad kula hadasho. marka la hadal asxaabtaada xataa iyana waxba ka garanayn keliya adigu waxaad qaadanaysaa tusaale kugu filan. marka use your friends inaad asxaabtaada la wadaagto oo kula hadasho xataa qofkaas inuu ku fahmayba iyona midba kaa fahmi waxaad ku hadlayso laakiin adigun inay kaa soo baxaan oo luuqadaasi aad ku hadasho naftaadana aad barto afkaagana barto ereyada iyo dhagahaaguna ay maaragtay isku keenaan ku hadalka luuqadda waxaa kuu fudaanaysa luuqadii waa kuu fudaanaysa.